munaasabad ballaaran oo heerka dhicitaankeeda si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay kasoo qayb galeen waalidiin, culimo u diin, aqoon-yahano iyo boqolaal ka mid ah qaybaha kala gedisan ee bulshada rayidka ayaa lagu qabtay magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne. munaasabadan ayaa ahayd mid ka koobneed sagootin, shahaado guddoonsiin iyo soo bandhigida arday ka kooban wiilal iyo gabdho. tiro ahaana gaaraya 15 arday oo ahaa kuwa dhammaystay xifdinta Quraanka Kariimka kana dhammaystay dugsiga barashada Quraanka Kariimka ee Nurul Iimaan ee Beledweyne ku yaala. culimo u diin, waalidiin iyo marti sharaf kala gedisan oo munaasabada ka hadlay ayaa hambalyo waxay u direen ardaydii maanta ka qalin jebisay dugsiga xifdinta Quraanka Kariimka ee Nurul Iimaan ee Quraanka Kariimka bartay, waxayna ugu baaqeen in Quraanka aysan sii daynin isla markaana ay dhowr jeer naqtiimiyaan. marka Quraanka qiimaha badan ay ka mid tahay in waqtiyaalkii uu soo degay bishii uu soo degayna ay tahay afdalu shuhur, habeenkii uu soo degayna ay tahay khayrun min alfi shahrin, kun bilood uu ka khayr badan yahay. dadkii ilaahay qalbigooda uu la milicsaday oo ilaahay qalbigooda u geliyay waxay heleen nasiib iyo qiimo aad u qaali ah. qalbigooda ma ahan mid qaraaba, ma ahan waa mid camiran. ilaahay kalaamkiisa ayuu ku camiran yahay subhanahu wa ta'ala. marka dadkaas Quraanka soo baray iyo qormanaha dhalinyarta yaryarka ah Quraanka ayagana la soo baray waxay leeyihiin nasiib ilaahay xaqiisa ilaahay uga fadilay subhanahu wa ta'ala. Quraanka marka fadiladiisu ay aad u sareyso noocaas iyo ka sii badan aan la soo koobi karin maadaama ay dhalinyartii la soo baray oo la soo xifdisiyay macallinkiina uu soo baray. macallinka waxaa la gudboon in maadaama ilaahay nasiib uu siiyay kalaamullaahi dadka uu baraayo, quluubta dhalinyarta uu ku camiraayo, asigana inuu la yimaado juhdi iyo ikhlaasu lillah, ilaahay dartiisa inuu la yimaado wax kastoo warkala kulmo oo mana ilaahay dartii ula yimaado, juhdigana uu sii laabo macallinkiinta ayaan kula dardaarmi lahay. tan kaleeto dhalinyarta yaryarka ah ee markaas ayagana Quraankii la soo xifdisiyay iyo kuwa daba joogana ee soo daba joogo ha ka dhigtaano uswo dayashaha ka dhigtaano ku daydaano kii ka Quraanka dhameeyay meeshad aad joogto ayuu soo maray. Soomaalidu waxay yiraahdeen geelu dhamaan laba jirka waa soo maray. marka midka hadda Quraanka dhameeyay meesha adiga aad joogtid hadda midka aan dhameeyno meeshaas ayuu soo maray. bacda salaam ilaahay subhanahu wa ta'ala hamdi iskale, amaan iskale, mahad iskale. allaha soo nagu jamciyay makaankan sharafta badan oo lagu tacdiimina oo lagu weyneyna oo lagu sharfa oo lagu qiimeeyna kalaamka Allah subhanahu wa ta'ala. meel walibana waxay u muuqataa wixii lagu qabto, makaan walba wuxuu ku gowracan yahay wixii lagu qabto. makaankan galabta wuxuu ku sharafoobay in lagu tacdiimiyay khatmul qur'aanul kariim. xafladu maahan maadi maahan, English maahan, qalin jibin iskuul sala maahan. waxaasoo dhan way ka sareysaa, way ka qiimo badan tahay. inay ka qiimo badan tahayna waxaad ku dareemi kartaa magaca madrasada Nurul Iimaan. ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaanka nuurkiisa allahna geliyo. magaca madrasada sida ka muuqato iyo sida qalin jibinta loo soo agaasimay ee ka muuqato intaan oo shacabe amba waalidiin ah amba culuma amba macallimiin ah oo 15 arday qalin jibintooda halkaan la keenay waa arrin aad u weyn. 15 iyo 20 qalin jibiso iyo wax u dhow kuma aqoonin meelahan oo kaleenta in lagu agaasimo, laakiin waxay ku tusinaysaa kartida iyo waxgalnimada macallimiinta madrasada ay muujiyeen iyo waalidiinta garab istaagay ay garab istaageen ayaa halkaan la keenay. anigoo ku hadlayo waalidiinta ardayda dhigata dugsiga Nurul Iimaan. intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo insha Allah ta'ala macallimiintana sharafta leh oo si aad u qiimo badan dadaal ugu bixiyay soo la gaarsiiyay ardada halkan
in maanta lagu maamuuso qur-aankii ay bareen oo kariimka ahaa. si aad iyo aad ah ayaan ugu mahad celinaynaa macallimiintana insha allahu tacaala haddaanu nahay waalidiintii ardada dhigata dugsiga Nuurul Iimaan. meeshaan walaalayaal waxaa ka muuqdo juhdi fara badan oo ka kooban 3 qaybood ka kooban ayaa ka muuqdo. juhdigaas oo kala ah juhdiga macallimiinta ay bixiyaan khayr Allah siiyo qur-aankii kariimka ahay oo sugan ee maaragta caruur ay soo saareen iyo juhdi ay waalidiin ay bixiyaan oo ilmahaas intaas oo sano wax baranayay heliyo la garab taagnaay iyo juhdi caruurtii ayaga wax la baray bixiyaan. juhdigaas oo ah juhdi oo macnaha faa'iido laga gaaray ah. marka waxa weeyaan waxaan dareemaynaa ila maaragtay meeshaan juhdi badan lagu bixiyay juhdigeena oo meesha uu maaragtay uu ka muuqdo ila maana tahay waxa weyn la gaaray ayaa muuqato walaalayaal. marka waalidiintii iyo macallimiintii juhdiga ay bixiyaan inay si laaban ayaan ku dardaarminaynaa. anagana haddaan nahay macallimiinta magaalada Beledweyne waxaan dareemaynaa horumar macallimiinta qayb kamid ay sameeyeen dhamaan in kasta macallimiinta ay wada sameeyaan haddana waxay noo tahay usoo xasana runtii ardayga quraanka kariimka oo macallinku si fiican u baro waxa runtii aan u dareenaa inuu ardayda kale ka sharaf badan yahay ka dadaal badan yahay ka xifdis badan yahay wax badan maadaama wixii ugu qayrka badnaay koonka la keeno ah quraanka kariimka qolka eebe oo qalbigiisa ku sugan yahay. qaar ka mid ah ardaydii quraanka kariimka ka dhameystay dugsiga barashada quraanka kariimka ee Nuurul Iimaan oo dhankooda intii ay munaasabada socotay hadlay ayaa waxa ay soo bandhigeen qaybo ka mid ah casharadii ay barteen. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يا رب على محمد نبينا هو ظاهر ذو الفرقان مننا وقصدي بالنصره في الرؤيا ويقضنا لما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الدور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. maamulaha dugsiga Nuurul Iimaan macallin Cumar Xasan Afrax oo gabagabadii munaasabada soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyay dugsiga Nuurul Iimaan markii Beledweyne laga yeeqleelay intii dafco ee ka qalin jibisay iyo waliba dafcada maanta qalin jibisay waxa ay ka koobnaayeen tiro ahaan inta ay gaarayeen waxa uu yiri. waxaan rabaa marka madrasatu Nuurul Iimaan taariikhdeeda wax yar oo kooban inaan ka hadlo oo khulaaso ah. madrasada waxaa la aasaasay 5 bishii 6 2015 ayaa la aasaasay 5 bishii 6 2015 ayaa la aasaasay. dafcooyinka ka baxay dafcadan waxay noqonaysaa dafcadii labaad ayay noqonaysaa. dafcada ka horeysay dafcada hadda maanta qalin jibinaysa waa 15 arday. waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal ay isugu jiraan sida aad arkayseen. gabdhuhu waa 6 gabdhood wiilashuna waa 9. sidaas marka ay noqonayaan ardada maanta qalin jibinayso. ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa ta'aala. waxa kaloo sharaf iyo ammaan mudan dadkii waalidiinta ahay oo waqtiga dheer aan soo wada qaybsanay haday yihiin kuwa caruurtooda ay madrasada ka baxday iyo haday kuwa ku sugan yihiin iyo haday kuwa maanta qalin jibinayo ardadooda haday yihiin intaba waxa waa iyadoo la ogyahay bulshada meel isugu timaado waxyaabo badan oo caqabado in iska yimaadeen annaga haba yaraata wax caqabada oo na soo waariday inaysan jirin. ilaahay baan uga mahadinaynaa subxaanahu wa ta'aala. waxa markaan ku dardaarmayaa oo waalidiinta dhammaan aan u dardaarmayaa kuwa maanta caruurtooda qalin jibinaysa iyo kuwa kaleba inay canuga halka maanta soo istaagay
ood arkaysana qur-aankii bartay inta ilaahay fahamsiiyey bartay inay halkaa ka sii wadaan sida culummadu ay u sheegeen iyo mashaayikhdu ay u sheegeen inaysan canugaas sii daynin maanta ayay tahay maalintii maaragtaahay la tawjiihi lahay oo si fiican gacanta loogu qaba lahay waa maanta inay u istaagaan culumtii kale oo islaamka siduu ku bara lahay qur-aankii wuxuu bartay siduu u hay lahay maadaama culummada ay noo sheegtay qur-aanka tiri waa shimbir baalkiisa lahayo oo haddaa sii dayda aan la soo qaban karin marka wuxuu bartay sida uu ku hay lahaa qur-aankii siduu ku hay lahay wixii u dhiman siduu maaragtaahay oo ku sii naqtiimi lahay oo qur-aankii ku sii celceli lahay qalinkii ku sii celceli lahay maaragtaahay sidaas ayaa looga baahan yahay anigu inaan la sii daynin. guntii iyo gunaanadkii munaasabadda waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii dugsiga Nurul Iimaan ka bartay xifdinta qur-aanka kariimka qowlkii eebe oo tiro ahaan gaaraya 15 arday rag iyo dumarna ka koobnaa. munaasabadda lagu soo bandhigay shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay isla markaana lagu sagootinayay dhiirigelinna aysan ka marnayn ee loo qabtay ardaydii ka qalin jebisay xifdinta qur-aanka kariimka ee ka bartay dugsiga Nurul Iimaan ayaa ugu dambeyn ku soo ilaatay jawi aad u nabdoon. Maxamed Ibraahim Siyaad, telefishinka Hiiraan Bile, Beledweyne.